Salaam magacayga waa Ruushka halkan waxa si joogto ah ugu soo gudbiyaa muuqaalo ku saabsan tiknoolajiyada iyo waliba qaababka kala duwan oo online-ka lacagta uga sameyn kartid meel kasta dunida ka joogtid haddaba haddii janaalkan muhiim u aragtid waa inagu soo biiri kartaa intaas kadib muuqaalkan waxa kugu loo daagi doonaa farsamooyin basiga isla markaana ku fududeynaya isticmaalka mobilkaaga ee phone-ka balse laga yaabo in qaybo badan oo inaga mid aysan aqoonin farsamada koobaad waxa haysataa sawirkan landscape-ka ama dhanka balaca weyn waxa u baahan tahay inaad sawirkan oo kale u adeegsatid wallpaper ama aad saaratid screen-ka mobilkaaga haddaba wuxuu noqon doonaa mid foolxuma isagoo sidan iyo haddii adeegsatid ama wuxuu noqonayaa mid aan kusoo baxaynin markaa screen-ka mobilkaaga haddii marka sawir noocan oo kaleeta oo landscape uu ku cajibiyo isla markaana u baahan tahay inaad wallpaper ahaan u adeegsatid kaliya waxaad dooran doontaa edit kadibna waxaad dooran doontaa crop kadibna waxaad dooran doontaa button-kan halkan waxa ka arkaysaa options aad iyo aad u fara badan oo sawirkaagana markaas lagaaga dhigi karo for example hadda anaga waxaan doonaynaa wallpaper marka wallpaper baa dooraneynaa kadibna waxaa arkaysaa in sawirkaaga hadda lagaaga dhigay sawir taagan oo wallpaper sax ah isla markaana aad saaran kartid screen-ka mobilkaaga kaliya waxaa dhigi doontaa dhan kadibna markaa waxaa saaran doontaa screen-ka mobilkaaga isagoo markaasi dhammaystiran isla markaana aad iyo aad u qurux badan farsamada labaad haddii aad doonaysid abiska screen-kaaga yaala in mid ka mid ah qayb kale tagaysid dadku inta badan waxay sameeyaan ama ay u kaxeeyaan qaab khalada balse sida ugu saxsan waxay tahay inaad marka hore abkaasi aad select gareysid ama aad dooratid kadibna hal far waxaa ku haynaysaa abkaasi sida ku muuqanaysa farta kaleetana waxaa adeegsan doontaa ama faraaga mid un ka mid ah inaad qaybaha kaleeta markaasi screen-kaaga ugu kala gudubtid ilaa halka aad doonaysid markaasi abkaasi inaad geesi aad tagtid kadibna simbali waad ku sii deyni kadibna waxaad dhihi dhan that's all farsamada saddexaad haddii qoraalkaaga meel ka mid ah ama letter ka mid ah oo kaa khaldamay aad doonaysid inaad wax ka bedeshid dabcan iPhone-ku wuu ka duwan yahay mobilada Android-ka kuwaasoo kaliya u baahan tahay inaad letterka doonaysid inaad wax ka bedeshid hortiisa hal mar kali ku siinaysid si cursor-ka automatically uu kugu yimaado balse iPhone-ka midaas macquul ma sida daraadeed qaabka ugu fudud wuxuu yahay inaad cursor-ka markaasi aad qabatid oo cadaadisid kadibna aad soo kaxisaado fartaada markaasi jiiday letterka kaa khaldan aad doonaysid inaad wax ka bedeshid markaad dul taagan tahayna simbali waa sii deynay kadibna waa iska tirtiri wax ku bedelan doontaa markaa letterka aad doonaysid farsamada afraad haddii qoraalkaaga oo badan aad doonaysid in wordka ugu dambeeya lagu highlight gareeyo screen-kaaga meel bannaan ayaa tegi doontaa kadibna wax ku siin doontaa double click automatically waxaa arkaysaa in markaa lagu highlight gareynayo qoraalkaaga wordka ugu dambeeya balse dhanka kale haddii aad doonaysid in qoraalkaaga oo dhan lagu highlight gareeyo ama select all lagu dhaho dhammaantiisa lagu select gareeyo kaliya waxaa 3 jeer gujin doontaa meel bannaan oo ka mid ah screen-ka mobilkaaga waxaa arkaysaa in dhammaan qoraalkaagii select all lagu yiri ama markaasi lagu highlight gareeyay farsamada shanaad haddii aad muuqaal kala soo degtid internetka markasta waxaa ogaataa muuqaalkaasi wuxuu geli doonaa qaybta fileska ee mobilkaaga si aad qaybta gallery ama photoska u geysatid muuqaalkaasi ayaa cadaadin doontaa kadibna waxaa dooranaya share kadibna markaas waxaa dooran doontaa save image hadduu image yahay haddii markaasi video yahayna waxaa dooran doontaa save video kadibna wuxuu ku geli doonaa galleryga mobilkaaga muuqaalkan oo kooban isla markaana kugu tusayay farsamooyin basiga oo ku fududeynaya isticmaalka mobilkaaga ee phone-ka intaas ku eegaya waxaa rajaynayaa inaad ka faa'iideen